السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتو إذن سلامة دمانتي سادو دنتهين ملك الصوت كلا جوجتان دون الدافع هيدا waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan dhammaantiin biidin illaah. haddaba dhagaystow haddii uu kusoo gaaro muuqaalkan fadlan isku day inaad ii sheer garayso, like, comment waa ii muhiim. haddii aad hore iila jooginna isku day inaad channelka subscribe garayso, muuqaalkana gambaleelkan on ka dhigato si uu kusoo gaaro muuqaal kastoo aan soo sheer garayno biidin illaah. waxaan rabaa inaan idin gudbiyo ama aan idinla wadaago qisadii Cusmaan bin Cafaan, ama xilligii uu dhashtay, xilligii uu dhintay, xilligii uu ku uu yacni la wareegay dowladda islaamka. waxaan rajeynayaa inaad ka bogan doontaan oo ay qisooyin kale way jiraan lasoo gudbiyo, laakiin aniga waxaa ila qurux badnaaday inaan dib u xasuusano dadkii ku dayashada mudnaa saxaabada. waxaa wanaagsan mar walbo inaad ku dayasho fiican la imaato, waayo qofka dhalinyarada ah asaga lama bedeli karo ee asaga ayaa wax bedelo. fadlan isku day inaad la wadaagto familkaaga iyo faniskaaga, iskuna day inaad kheyr ka faafiso, waayo hal kheyr ah haddii aad faafiso kuna xasanaad ayaad leedahay biidin illaah. sida tan ayay ku bilaabanaysaa qisadii Cusmaan bin Cafaan. kusoo dhawaada mar kale iyo mar kale. Cusmaan bin Cafaan waxa uu dhashtay sanadii 577 miilaadiyada, waxaana uu ku dhashay magaalada Daa'if duleedka Carbeed. isla markaana waxa uu dhintay 20 Juun 656 miilaadiyada, 18 Dulxaj 35 hijriyada. kadib waxa uu ahaa saaxiibka saddexaad ee Nabi Muxamed salawaatullaahi rabbi wasalaamu calayh, hogaamiyihii afraad ee dowladda islaamka, asxaabi ka mid ahaa khulafaa ur-raashidiin iyo mid ka mid ahaa asxaabta rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Cusmaan bin Cafaan waxa uu ka dhashay qabiilka Umayyad ee reer Maka, kuwaasi oo ahaa reer aad iyo aad u awood badan kana tirsanaa beelweynta Quraysh. Cusmaan waxa uu ahaa hogaamiye ka mid ah khulafaa ur-raashidiin, kaasi oo talada iyo hoggaanka maamulka dowladda islaamka la wareegay isaga oo ahaa 65 jir, kadib markii uu Cumar bin Khadaab dhintay. waqtigii uu hogaaminayay maamulka dowladda islaamka hayayna Cusmaan wuxuu gaarsiiyay diinta islaamka heer aad u sareeya, isla markaana uu qabsaday dhulal aad iyo aad u baaxad weyn oo ay ka mid yihiin boqortooyadii Bershiya, duleedka maanta loo yaqaano Iiraan, meel ka mid ah Khuraasaan, degmada maanta lagu magacaabo waddanka Afghanistan, iyo meelo badan oo ay ka mid yihiin bariga Yurub. intii uu nabiga noolaa, Cusmaan bin Cafaan waxa uu ahaa saaxiibka iyo la taliyaha saddexaad ee Nabi Muxamed salawaatullaahi rabbi wasalaamu calayh, isaga oo kala qayb galay arrimo aad iyo aad u badan, wuxuuna ka garab dagaalamayay Nabi Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee qaswado aad iyo aad u badan oo ay ka mid yihiin dagaalkii Badar, dagaalkii Uxud, dagaalkii dhufaysyada, qabsashadii magaalada Maka, dagaalkii Khaybar, dagaalkii Xunayn, go'doomintii Daa'if iyo dagaalkii Taabuuk. dagaaladani wuxuu Abuubakar ku qarash gareeyay in badan oo dhaqaalihiisii ka mid ahaa. asxaabta waxaan rajeynayaa ma dhammaynin, laakiin inaan idin soo gudbin doono qayb. fadlan haddii aad igu cusub tahay walaalkay channelka ama walaashay channelka, isku day inaad subscribe garayso, muuqaalkana aad sii share garayso, gambaleelkana on ka dhigo si uu kuu soo gaaro muuqaal kastoo aan soo share garayno insha Allah. waxaan rajeynayaa inaad codsigayga ii taxgelin doontaan, lana wadaag walaalkaaga muslimka ah si uu u barto qisooyinka islaamka ama qisooyinka saxaabada. waxaan rajeyn doonaa inaan intaan kasoo badin doono biidin illaah. waxaan idin leeyahay tan iyo kulanto dambe, wabillaahi towfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.